laga yaabo ninkaaga inuusan lugaha ku riixin caruurtana xafaayada kaaga bedelin jikadana kula gelin si uu ku caawiyo balse waxa hubaal ah inuu ku jecel yahay qaab kale آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. السلام عليكم وأتكم أحسن تاي داوشة فيديو كان كسر دو برنامجك سدات كفهميسا نينكاغا مقعي ويوسف سكين حلقة وحلقة لبات إلى فيري قوبتان صوت سعودة نين يوحاس كيسا أي وحي اسكو راعين بارتا حيوانات لو حنانيو كتب سيده ay u soo dhex socdeen beerta gudaheeda ayaa ninkii xaaskiisa waxay aragtay daanyeer iyo daanyeertiisa oo isla ciyaaraya oo ay farxad ka muuqato kadibna intay ninkeeda soo fiirisay waxay ku tiri Allah maxaa ka qurux badan jaceelkan oo kala ah ninkii uu iska aamusay wax jawaab ma uusan u celinin haddana way sii socdeen beertay ku sii dhex socdeen haddana waxay arkeen wax yar kadib libaax iyo libaaxdiisa oo isku dhaweyn kala fog oo aan isla ciyaareynin oo u muuqda inay isku careysan yihiin ama dhaxdooda uu khilaaf ka taagan yahay kadibna xaaskii intii ninkeeda mar kale soo fiirsay waxay ku tiri Allah maxaa ka xanuun badan jaceelkan oo kala ah markan ninkii intuu iscelin waayay ayuu wuxuu ku yiri gacliso hoo baashan dhaladan u tur dhinaca libaaxa kadibna dhalada intay qaaday ay waxay u turtay dhinacii libaaxi iyo libaaxdiisii ay wada fadhiyeen kadib markii dhalada ku turtay libaaxi intuu soo booday dhaladii xaggeeda u soo booday ayuu wuxuu bilaabay inuu difaaco duqdiisii inuu difaaco libaaxdiisii oo uu ka celiyo dhibaatada iyo waxaan uga imaanaya dhibaatadan gaaraysa kadib way sii baxeen waxay ku sii noqdeen meeshii daanyeerkii iyo daanyeeradii ay wada fadhiyeen oo ku ciyaarayeen oo ay farxadda ka muuqatay kadib wuxuu ku yiri markale haddana ninkii gacalisay ugu soo jeestay wuxuu ku yiri gacaliso hoo dhaladan ku tur haddana dhinaca daanyeerka dhaladii ay qaaday waxay u turtay dhinaca daanyeerka balse daanyeerkii lugaha ay wax ka dayay meeshii dhan uu ka cararay wuxuuna ka cararay duqdiisii daanyeertiisii ayuu ka cararay markaan ay u soo jeestay wuxuu ku yiri gacaliso fiiri waxaa jira waxyaabo inoo muuqanaya aynu dusha uga jeedno bes balse aysan dhab ahayn sidoo kale waxaa jira waxyaabo aynaan u jeedin dad waxaa jira aynaan arkaynin oo jaceylkooda markaas ayna dareemaynin balse qalbigooda uu ka buuxo jaceyl aan xad lahayn jaceyl aan la tilmaami karin haddaba sheekadan waxaa uga dan leeyahay waxaa laga yaabaa adiga inaad aragtid gabar ninkeeda uu mar walba ku yiraahdo hadalo macaan xabiibtii xayaatii macaanto gacaliso laantaada ma joogi karo laantaada ma noolaan karo aadan kuu jeclay mar walba hadalka wax walba u sameeyo mar walba garab siiya inaad aragtid kadibna waxaad fiirinaysaa ninkaagii aad adkaa aan hadalo macaan kugu dhahaynin aan weligiisa aadan ka maqlin asagoo kule xabiibtii xayaati la-aantaada ma noolaan karo kadibna waxaas lehaysaa maxaa iga nasiib xun aniga nasiibkay aad ayuu xun yahay hiblaayo iga nasiib badan tahay hiblaayo waxay haysataa nin aad u jecel aniga meeshaan jecel kuma hayo meeshaan waa ku dhintay aniga waa ku gacan galay meeshaan ninkaa ima jecla haddaba yaa kugu yiri ninkaa kuma jecla adiga hadda waxaa aragtay bes waxa kuu muuqda oo kaliya sida daanyeerkii iyo daanyeeradii oo kale waxaa aragtay bes in ninkaas uu mar walba hadaladaas dhahayo balse yaa kugu yiri inuu jecel yahay soo lagama yaabo guda ahaan in waxaas aysan dhabka ahayn in qalbiga jecelkaasi uusan ku jirin sidoo kale soo lagama yaabo ninkaaga aad adeega ah oo aadan hadaladaasi maxaan aadan ka maqlaynin in gudihiisa uu ka buuxo jacayl dhab ah jacayl run ah uusan ku ogolaanaynin in wax dhibaato ku gaaraan uu ka difaacayo wax walba oo dhibaato ah kuna keenayo wax walba u baahan tahay halka midkaas kale afka macaan laga yaabo markay wax yar dhibaato ay dhacaanba inuu ka cararo gacalisadiisa haddaba maanta waxaynu ka hadli doonaa jacaylka nimanka muxuu yahay jacaylka nimanka
sidee lagu gartaa jacaylka nimanka midoow nimanku jacaylkooda waxay ku cabiraan saddex qaab ayaa asaasi u ah oo jacaylkooda oo dhan ku wareegta oo jacaylkooda oo dhan ay ku sheegaan saddexdan waxay yihiin kow muujin ninka hadduu si dhab ah ku jecel yahay wuu ku faanaya wuxuu u sheegayaa dadka oo dhan in adiga aad tahay gacalisadiisa in adiga aad tahay qofta uu jecel yahay marna lagama yaabo inuu ku qariyo marna lagama yaabo inuu jacaylkaasi uu ku qabo dadka kale ka qariyo balse marka uu kula socdo adiga wuxuu dareemayaa adduunka oo dhan in gacantiisa ay ku jiraan aad ayuu kugu faanaya hadduu dhab ku jecel yahay marna lagama yaabo inuu ku qariyo marna lagama yaabo inuu dadka ka qariyo balse uu kugu faanaya mar walbana wuxuu jecel yahay in adduunka oo dhan uu ku yiraahdo waa tana gacalsadeeda waa tana qofta aan jecelahay waa tana nolosheeda mid labaad ee nimanku ay jacaylku ku cabiraan waxay tahay bixin haddii uu ku jecel yahay oo si dhab ah ku jecel yahay marna lagama yaabo inuu wax ka xasdo wax uu awoodo inuu ku qabto marna lagama yaabo inuu ka xasdo ama uu ka cisto wax walba uu awoodo wuxuu diyaar u ahaanayaa inuu ku siiyo adiga dartaada inuu u sameeyo adiga dartaada inuu buuraha u jeexo oo uga gudbo si uu adiga kugu keeno waxa adiga aad doonaysid haddii uu dhab ku jecel yahay ma jiraan wax celin kara ilaa uu kaaga keeno waxaad u baahan tahay waxa adiga aad doonaysid ilaa uu kaaga dhabeeyo marna lagama yaabo inuu dego marna lagama yaabo inuu fadhiisto waayo qofkii uu jeclaa ayaa wax u baahan fadhi uma yaalo haddaba ninkaaga jacaylkiisa waxaad ku garanaysaa midaas haddii uu ku jecel yahay oo aad ku tiraahdo gacaliya waxaasan u baahanahay ma laga yaabo inuu ka warwareegto haddiiba uu awoodo wuu ku keenayaa adduunka meesha ugu dambeysa haddii uu aada hataa wuxuu isku dayaa si kasta uu ku keeni lahaa si kasta waxa u baahan tahay kugu keeni lahaa midda saddexaad waxay tahay wuu ku ilaalinayaa kuma ogolaanayo wax dhibaato ah kuma ogolaanayo wax dhib yar hataa inay ku soo gaaraan wuu ku ilaalinayaa wuxuu ka ilaalinayaa wax kasta oo dhiba wuxuu ka ilaalinayaa wax kasta oo dhibaato ku soo gaari kara oo qof kasta kaaga iman kara meel walba ay haataba wuxuu ku ilaalinayaa sidii qof wax kugu soo dhawaan kara ma jiraan waayo waxaad tahay noloshiisa waxaad tahay qof qaali ka ah agtiisa haddaba saddexdan shay ka raadi ninkaaga inuu ku muujiyo oo kugu faano inuu ka ilaaliyo wax kasta oo dhiba inuu ka ilaaliyo wax kasta oo dhiba inuu ku siiyo wax walba oo u baahan tahay haddii aad intaan ka heshid intaan waa asaasiyaadka waxyaabaha nimanku jacaylkooda uu ku dhisan yahay waayo intaas ayaa lagu soo barbaarayaa marka yar yihiinba waxaa loo sheegaa in ay ilaaliyaan qofka ay jecel yihiin in qofka ay jecel yihiin wax u keenaan hooyadooda inay ilaaliyaan walaalahooda inay ilaaliyaan gabdhaha inay ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan wax walba oo dhibaato u keeni kara wax walba oo soo gaari kara inay ka difaacaan samaahan markii yar yihiin ayaaba nimanka saas lagu soo tarbiyeeyaa saas ayaa la soo baraa haddaba saddexda haddii aad ka heshid inta kale waa wax la kasbado hadalada macaan inuu ku garab kugu siiyo jikada inuu caruurta kugu caawiyo guriga intaasi waa skills waa xirfado qofku uu kasbado hodhow marka uu weynaado balse asaasiyaadka waa intaas saddexdaas nooc inuu ku ilaaliyo inuu ku keeno wax walba u baahan tahay inuu kugu faano inta haddii aad ka heshid wuu ku jecel yahay waa hubaal shaki kuma jiro jecelkiisa balse ay fahmin si qalad ah markaan leeyahay inuu ku caawiyo waa wax caadi dheeri ah may kama wado waa muhiim ninka inuu xaaskiisa caawiyo inuu ku hadlo hadallo macaan intaas oo dhan waa wax loo baahan yahay muhiim ah laakiin waxaan doonayaa inaad ogaatid waxyaabaha asaaska ah ee lagu soo barbaariyo nimanka waxaa lagu soo barbaariyaa markay yar yihiin inaysan jikada gelin inaysan gabdhaha dhex boodin soomaan waa lala yaabaa marka wiilka gabdhaha yariis walaalihiisa uu ku dhex jiro waxaa leeyahay ka soo dhexbax ninaad tahay orod nimanka dhexgal waxaa lagu soo barbaariyo inuu nin ahaan adkaado oo adeegaas ku noolaad ayaa lagu soo barbaariyaa marka hala yaabin marka adeegaas aad ka dareentid balse ninka aqliga leh muxuu sameeyaa ninka aqliga leh wuxuu bartaa xirfadaha cusub wuxuu kasbadaa caadooyin cusub oo ah inuu xaaskiisa u naxariisto inuu xaaskiisa caawiyo markay u baahan tahay inuu caruurta ku caawiyo haddii eeda mashquulsan tahay inuu guriga ku caawiyo sidoo kale inuu hadallo macaan kula hadlo intaas waa wax la kasbado haddii aad ka weysid ma aan inuusan ku jeclayn
jecel yahay balse adiga ayuu kaaga baahan inaad garab ku siisid intaas way asaga laguma soo barbaarin intaas lama soo barin hadalada macaan markuu hadalada macaan ku hadlo markuu yara waa la aamusin jiray waxa la dhigi waxa nin Soomaali nin iska dhig waxa uu hadlaysaa hadaladan oo gabdhaha ay ku hadlaan markuu jikada aad waxa leeyahay ka soo bax jikada maxaa ku gali gabar ma tahay jikada maxaad ka sameynaysaa marka ninkaaga haduu jikada ku soo gali oo ku caawin waayo hala yaabin wax walba wax lagu soo barbaariyay oo ninnimadii laga soo dhigayo dadka isku soo barbaariyeen wuxuu kaaga baahan yahay adiga wuxuu kaaga baahan yahay in adiga aad ku caawisid midaan in adiga aad ku caawisid oo aad gacliya soo waxaan qaadanaynaa kursooyin ku saabsan sida lamaanaha isku ay ku kordhinayaan jecelkooda ay ku kobcinayaan jecelkooda soo kursooyin ay qaadanayaan book soo gad oo ka hadlaya sida ay lamaanaha isku jeclaanayaan video kan oo kale oo ka hadlaya lamaanaha sida isku jeclaanayaan la wadaag daawada yani adiga ayaa kasbin kara caadooyin wanaagsan caadooyinka uu jecelkiisa hadalada macaan uu ku dhigi karo waxaan waa wax adiga ka kasban kartid adiga ayaa ka dhigi kara adiga ka keensan kara balse ma ahan inuusan ku jeclayn waxaad ku garanaysaa inuusan ku jeclayn saddexdaas shay bas ku kala saar inuu ku ilaalinayo inuu ku keeno wax walba u baahan tahay iyo inuu kugu faanayo intaas waa asaasiyaadka looga baahan yahay ninka haduusan ku ilaalinayn kuma jecla ninka haduusan ka ilaalinayn wax kasto dhiba kuma jecla waayo nin kasta qofku jecel yahay wuxuu ka ilaaliyaa wax walba dhibaato ah uma ogolaanayo wax yar oo dhibaato inay soo gaaraan haduu si dhab ah u jecel yahay waxa xasuustaa markaan yaraa 10 jir meelahaas markaan ahaa hooyadii macaan ilaaha u naxariisto jannada Allah ka waraabiyo jannada firdawsa waxay lahayd maqaayo marka maalin waxaan fadhiyay maqaayada horteeda nin ayaa maqaayada intuu wax ka soo cunay lacagtii ma soo bixinin kadibna uu iska soo tagay way ka soo daba baxday ayadoo laakiin lacagtii si lacag kalena way ku lahayd marka inuu wax bixiyo ma rabo uu iska soo tagay asana ayadoo la hadlaysa keen kula ayuu iska soo dhaqaaqay way ka soo daba baxday banaanka isla soo baxeen ninkii markuu arkay inuu hooyo ka soo daba ordayso meesh ani aan fadhiyay soo gaareen oo arkay intuu ku soo jeestay ayuu mindi la soo baxay oo hooyo ula soo orday mindii aniga 10 jir ah moogi balse waxa qaaday dabeecadeedii wax ani jecelkayga ayaa arkay in khatar uu ku jiro jecelkayga ayaa arkay inuu qof rabo inuu dhibaato u geysto wallahi ma ogi goortan soo kacay waxa arkay aniga oo ninkii gacantiisa kula dhagan mindidi oo dhex galay hooyo asaga dhexdooda maxay kiciyay markaas waxa uu shaqeeyay si la waay aniga ma ogi balse waxa iska celin karaa ninka iska ma celin karo ma ka fikirata waxa ugu dhimay balse waxa arkay oo kaliya in jecelkii qofka adduunka ugu jeclaa inay wax gaarayaan qofka adduunka ugu jeclaa inuu rabo qof inuu dhibaato u geysto midaas ayaa soo kixisay hadaba waa asaas markaynu yarnahay nimanka ayaa lagu soo barbaariyaa inay ilaaliyaan hooyinkooda gabdhahooda dadka ay jecel inay ilaaliyaan ninkaaga haduusan wax walba dhibaato ka ilaalinaynin haduusan marka adiga xanuunsan tahay kula ordaynin isbitaal ku keenin dhakhtarka ugu fiican oo awoodo haduu mar walba uusan ka fikiraynin adiga caafimaadkaaga iyo waxa rabtid iyo waxa doonaysid hadaba waxaad mudan tahay inaad istaagtid oo aad isweydiisid si dhabax miyuu ku jecel yahay mise kuma jecla jikada haduu kugu caawin waayo haduu lugaha ku riixi waayo haduu maartay caruurta wax faa'iido kaaga bedeli waayo macnaheedu ma inuu soo ku jeclaan uu ku jecel yahay intaas waa waxaan nirwaa waxyaabo la kasbado adiga ka keensan kara adiga ayaa baraya si naxariis ku jirta inaad tartiib wanaagsan u bartid oo ku tirad gacliga kaale waxaanu kubcinaynaa jecelkeena ka waran hadii aynu hadal macaan isku hadalno adiga ayaa baraya laakiin hadii uu ku ilaalin waayo adiga xanuunsan hadii wax dhibaato ku imaanaysa uu ka difaaci waayo hadii adigoo wax u baahan oo xanuunsan uu garab ku siin waayo uu ku keen waayo daawada u baahan tahay hadii kugu faani waayo kuma jecla markaas kuwaas waa asaasiyaadka kala saara ninka jecelkiisa inuu ku jecel yahay inuusan ku jeclayn intaas uu ka fiiri inta kala ma aha oo dheeriga ah ee la kasbado intaas adiga ayaa baraya waa muhiim malihi ma loo baahna ma yareynayo waa muhiim waa loo baahan yahay wax loo baahan yahay laakiin ma ahan asaasiyaadka ma ahan waxyaabaha lagu soo barbaarinayo waxyaabaha lagu soo koriyo nimanku ma ahan intaas adiga ayaa ka keensan kara ninka aqliga lehna asaga ayaa baranaya kuwaas oo kasbanaya caadooyinka wanaagsan oo kasbanaya xirfado cusub skills cusub oo xaaskiisa ku kasbanayo oo uu ku kordhinayo jecelka
xaaskiisa gunaanadkii waa intaas. haddii ninkaaga uu ku daryeelayo, haddii ninkaaga uu kugu faanayo, haddii ninkaaga uu ku ilaalinayo oo ka ilaalinayo wax kastoo dhibaato ah, wuu ku jecel yahay. waxaad haysataa jaceylka aad u baahneed. ha fiirinin qof kale, ha fiirinin wax kale dad kale ay sameynayaan. muhiimad waxay tahay ninkaaga wuu ku jecel yahay, gurigaagana adig ayaa ka dhigan kara mid janno ah, mid farxad iyo jecel loogu noolaado. bar inta kale ee ka dhiman adiga ayaa bari kara, bar si uu u kasbado caadooyinka kale ee wanaagsan, inuu jikada kugu caawiyo, inuu garab ku siiyo. intaasoo dhan adiga ayaa bari kara. sidoo kale adigana waxaa lagaga baahan yahay ninka ah in adigana noqotid qof caqli badan oo kasbatid caadooyin aad xaaskaaga ku faraxsiinaysid, caadooyin waxyaaba ay u baahan tahay ka mid ah, sida hadallada wanaagsan inaad caawisid oo aad garab ku siisid. haddaba halaqada soo socota waxaanu ka hadli doonaa waxyaabaha ay nimanku u baahan yihiin, waxyaabaha ay sida dhabta ugu baahan yihiin. 3 shay ayay u baahan yihiin oo marnaba awoodin inay helaan ma ahane la-aantooda aysan noolaan karin. maxay yihiin 3daas shay? waxaanu ku ogaan doonaa halaqada 3aad ee soo socota. tan iyo kulankeena midaas inta laga gaarayo waxaan kaaga tegayaa farxad iyo jacayl inaad ku wada noolaatiin adiga iyo lamaanahaaga ama adiga iyo qofka aad jeceshahay. aad iyo aad u mahadsan tahay. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستقبل